واسي حوله وآه ماشي بركة عياشة وقبضنا الدقمة يقولي وحمان تمركا نويمي وأنا هالكن وربحين كل قاعدنا إننا أنجو فلونا أما ويرتي الدولة ده يأمر كي وزارة الرماية كلها هاوشي هاي إن تتكلم هروه ولا جر هرو ديجا مدن سئان ديجا معصب لو سمينين أو نسميسمين مركب والله هراي وابلوني وحنا نوررني ديجان كجوميسيد دولة انترناشنال انشيوجا سما فرياش محسنين تاع وحنا وشيجينا إن ما أنت وحي كدم بيا أتكلم حريدان هاوش ناس ديجان كجوميسيد وهذا اللغة دقيقين حرو لغة يقلالي بركة هالكن تاجنا يو كوا كلابا وحنو دلنا هاي هالكا ولا ليال وهي عصين إنسان يو واحد وصل تلاقشين يو أساس مكينة بقى هالكاس أيام هو أستيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد كثيرا طيبا بارنا فيه إلهي بانو مهد علينا مركب كوباد المركب بعدنا وحما هذا إسكال إذا ماذا قرنكه halkan gacanta weyn ka geysanaya in la fuliyo awaamirtii dawliga ahayd ee ka soo baxday kaamamka ay sameeyeen abaaruhu kadib markii ay xukuumaddu qaadatay go'aamo adag oo ah inaan digaamin cusub la sameyn maanta waa 18 bishii 6 2017 saa uu maayirka igu sheegay waxaan joognaa kaamkii ugu ballaarnaa kaamamka aagan ku yaalay si xawle sidaad aragtaan ama dabadeeda ka aragtaan ama media ka arki doontaan geediga ayaa soconaya dadkana waxa loo aastay inay tagaan magaalada tuulada Gumeys waxaan u sheegnaa dhammaan hay'adaha caalamiga NGO-yada local NGO-yska iyo dadka muxsiniinta wax bixiya maanta laga bilaabo in ay dawladdu ama mataqaanay gobolku uu rafiday ama laabay kaamkiisa xawlaha dadkii deganaa loogu hagaagi doono tuulada Gumeys anagoo haysanay sabab farbadan awgeed koow in deegaanka la ilaaliyo labo in caruurta barakacayaasha ay hesho waxbarasho oo halka ay ku yaalaan iskuul hoose dhaxa saddex dadku inay helaan caafimaad joogto ah oo halkaas ay leedahay rug caafimaad iyo biyo nadiif ah inta afraadna waxay tahay in hadii Ilaahay ku roon yahay la fuliyo awaamirtii dawliga ahayd halkan aan joogna saartan waa deegaanka Ceelmudgaan halkaas oo degan yihiin dad qaxootiya saakan halkan nimi saa la socotaan dawladdu waxay soo saartay go'aamo wasiirka arrimaha guduhu in wixii allaala wixii kaama la baabiyo annaguna waxaan fulinaynaa wareegtadii wasiirka arrimaha gudaha ciidan iyo maamulba oo la maraya barisaabkii taliyay qaybta 11aad abaandulii qaybta 7aad dadweynaha saad u aragtaan si wacan bay u guurayaan waxaan dadka baaq ugu direynaa in cidna aan ku hadhayn halkan waxaan salaameynaa dadweynaha reer Goobo oo amarkii la falay jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha ka soo baxay sida uu fulisay dhiiri Goobo aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa waan u mahad celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa sida ay awaamirta u qaateen sharciga dawladda ugu hoggaansameen birimiyada koobaad bay amal marina waa naga heliyaa waxaan u sheegaynaa beelaha kale ee amarku ku soo baxay inay taasoo kale ku daydaan inay kaga daydaan reer dhiiri Goobo firfircoonida iyo awaamir qaadashada iyo dhaqan wanaagga inay kaga daydaan baan u hambalyeeynaa waxaanu diyaar u nahay haddii aan ahay gudoomiyaha ceelka la yiraahdo Ceelmudgaan waad aragtaan indhihiinaad ku aragtaan waxaanu diyaar u nahay inaanu dadka rarno wixii aan xoolo u hadhin rarno geyno meesha la yiraahdo Adhe Cadeeye